من ربك ما دينك ما كتابك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من عدوك الشيطان ربك الله أعطاك كل جميل في الدنيا والأخرى من البلاء ما كتابك دينك الإسلام نوره والضوء رحمة وسلام من البلاء يحميك. عن أبي بن كعب وحلقوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام وحاك عن موسى النبي النبي خطيبا حالوي أسوى خطبين خطبة أغرني في بني إسرائيل في بني إسرائيل دعوه ككعي أسوى خطبة أغرني فسئل وقال ويدي النبي موسى أي الناس أعلموا ذاتك يا علم بدن فقال وحو يري أنا أعلم أنا أعلم بدن ذاتك هذا مركا أيضا أنا de wuu ahaayo de nabigii la soo diray buu ahaaye ummadda dhan bay diinta ka qaadanayso kitaabka tawrada lagu soo dejiyay ayuu ahaaye de asagaaba ugu cilmi badnaa markaa dadka yahay sida muuqatay waay ay laakiin xagga aadaab ahaan umbayn looga fiicnaa inuu yiraahdo ana a'lamu ilaahay baa ku dagaalay fa'ataba Allahu alayhi ilaahay baa ku dagaalay id lam yurdil ilmigi markuusan celinin ila Allah ilaahay xaqiisa markuusan u radin man a'lamu naas markii la yiri waxa fiicnayd baa leeyahay haboonayd inuu yiraahdo Allahu a'lam marka nabigu wuxuu yiri ana a'lamu ana ugu cilmi badan ilaahay taasoo ku dagaalay fa Allahu ilaahay baa u waxyooday ilayhi nabi Muuse inna 'abdan adoon oo min cibaadi adoomahayga kamida ama anna 'abdan adoon oo min cibaadi adoomahayga kamida hadii inada la hoosaba qaala loo qadaray fa Allahu ilayhi ilaahay baa u waxyoodayo fa qaala wuxuu yiri inna 'abdan adoon oo min cibaadi adoomahayga kamida bimajma'i al-bahrayn meesha majma'u al-bahrayn la yiraahdo ku sugan ya huwa a'lamu minka ka cilmi badan adoon kaasa ka cilmi badan cilmi gaar oo lagu khasisay buu kaaga cilmi badan yahay ka reeyaw qaala wuxuu yiri nabi Muuse ya rabbi rabbigayo wa kayfa bi adoonkaas seebe igu sugnaaday seen ku heli kara adoonkaas aaya kayfa bihi ay kayfa sabila ila liqa'i seen ku gaari kara adoonkaas faqila lahu waxa loo yiri nabi Muuse ihmil humbar hutan kalluun humbar fi miktalin dambil ku humbar fa ida faqatahu kalluunka markaad weydo fa huwa thamma adoonku meeshaas uu jooga meeshaas aad ka helaysaa فانطلق وتغي نبي موسى وانطلق بفتاه وحولته وانطلق يعني وتغي يصاحبه أصغر الله صاحبه أما مصاحبا الله صاحبه بفتاه يعني خادم كيسي يوشع بن النون لأورنجري نكي خادم كيساها يوشع بن النون لأورنجري نكاسو لتغي وحملها وحي حنبارين حوطا بي حنبارين في مكتل دنبيل بيكو حنبارين حتى كان عند الصخرة حتى كان مركي هذين عند الصخرة صخرة أكتر مركي هذين وضع رؤوسهما مدحودي بيدجين فناما ويسحده ماشي مركي مريان وماشي وكسغنا نفته وجوغي يعني خضر وكسغنايا أدون كان لشيء ماشي وكسغنا وي صخرة وينيد أكتر مركي جوغان وضع رؤوسهما عند الصخرة آية التي عند ساحل البحر الموعود لو يبوهي آية بلغي الخضر عنده آية خضر إني ماشا كل ميان ماشي لوغول يبوهي يا صخرة وين وكتا اللي أكثر إذا مركي جوغان هلكا بيسكسي حدا وضع رؤوسهما فناما فانسل الحوت كلونكي ووسيب مي من المكتل دنبيش أيو كبحر kalluunku wuxuu ahaa kalluun la solay oo markaa naf ku jirin oo sahay ay u wateen buu ahaa ay soo kariyeen buu ahaa Soomaa meeshii dambiisha markii sidaa loo dhigay
sakhradaa weyne ka noolaanay biyihii unbaa kusoo faninayoo taabtay wuu iska noolaaday marka fii riwaaya waxaa ku sugnayd nabi muuse markuu iska seexday yuushac ishii buu damcay inuu ku weysaysto weysadii uu ku weysaysanaya faniinkeedii baa kalluunka gaartay markaasuu gilgishay asagoo dambiisha dhexdeeda ku jiro fag unbuu dambiisha ka yidhi oo badii buu isku tuuray wuu sii fiirinayay markaas yuushac wuu fiirinayay wuu la yaabanaa bahalka noolaaday oo haddana baddi intuu galay weliba biyihii saa u kala jeexay marka inuu u sheeguur doonaya nabi muuse markuu hadhow soo toosay uu iska seexday markay soo toosayna inakeen markuu yidhina wouba hilmaamayba wamaa ansaaniihu ila shayطaan marxaban fansalla alxuutu baa siimay min almiktali faاtakada sabiilahu waddadiisii buu yeeshay fi lbaxri badda dhexdeeda saraban buu ka yeeshay saraban ay maslakan dariiq weyn oo la maro biyihii buu saa u kala jeexay markaasuu baddi saa u maray ama mahe ilaahay baa biyihii u kala joojiyo biyihii baa saa u kala istaagay markaasuu kalluunkii iska maray dhexda biyihii baa lakala saa loo kala joojiyey wa kaana limuusa waxaa u sugnaaday iyo wafataahu yani khaadumkiisii yani wiilkiisii khaadumka ahaa waa yuushace cajaban baa u sugnaaday yaab maxay la yaaban yihiin yani kalluunka noolaaday oo haddana baddi intuu maray ixyaau lxuuti iyo wa imsaaku jariyati almaa'i biyaha jaryadoodii sidaa looga qabtay xataa saara maslakan ilaa waddo weyn ay noqoto taasay la cajabeen fandalaqaa way tageen baqiyata laylatihimaa habeenkoodii intii ka dhimanayd bay socdeen wa yawmahumaa bay socdeen maalin subaxii dambe waaga u baryay ilaa duhurkii la gaaro falamaa asbaxa markuu waa baraystay qaala muusa wuxuu yidhi lifataahu marka asbaxadan waxa weeye subaxii markuu waagu u baryey yay haddana socdeen ilaa laga gaaro duhurkii agtiisa harkii laga gaaro qaala wuxuu u yidhi markaas muusa nabi muuse lifataahu aatinaa noo keen hadaa'ana qadadeenni bal noo keen laqad laqiinaa waan la kulannay min safarinaa safarka annaga haadaa oo kana nasaban dhib baan kala kulannay bal qadaneeda noo keen sharciga qada iyo quraac unbaa jirta moogta gelinka hore wixii la cuno o dhan baa ilaa duhurkiiyaa qada la yidhaha gelinka dambe ilaa habeenkii wixii la cunona casho un baa la yidhaha qadiya waayahay waayo qada iyo casho un bas aw labada marka haddee gelin horey joogaane waktigaas yani harkii agtiisa ay hergeleen oy daaleen oy meel fadhiisteen ugu nasanayaan yaa wuxuu leeyahay aatinaa qadaa'ana qadadaanadii noo keen laqad laqiinaa min safarina hada nasaba safarkeennan dhib iyo daal baan kala kulanay walam yajid muusa nabi muuse muusan helin oo muusan dareemin masan min annasabi yacni daalkii xanuunkiisii muun garanin xataa jaawaza almakaana makaankii ilaa uu gudbay alladii umira bihi la amray meeshii majmaculbaxrayn markuu soo dhaafay oo cinda sakhradii ay seexdeen bay ahayd meeshii lagula yani mawcidku ahaayey inay addoonka kula kulmaan meeshii bay soo dhaafeen soo maha intii ka dambaysay unbay daalkan iyo dhibaatadan garteen intii ka horraysay soo socdeen waxba daala mayna dareemin fa qaala lahu wuxuu u yidhi nabi muuse fataahu baa wuxuu u yidhi khaadumkiisii baa wuxuu u yidhi ara'ayta bal ii sheeg bul iiga waran id awaynaa ila sakrati yacni dhagixi weynaa markii aan u dumanay ee meesha aan seexannay fa innii anugu nasiitu alxuuta kalluunkii halkaasaan kusoo hilmaamay meeshaanba kusoo hilmaamayba marxaban nabi muusena ballankii la siiyey muxuu ahaa meesha aad kalluunka ku weydo meeshaa unbaad kula kulmaysaa addoonka qaala muusa nabi muuse wuxuu yidhi daalika kaas maa kunnaa nabqi wixii aan dalbaynay waaba kaas in kalluunka la waayo waaba wixii aan doonayn ay waaba meeshii aan ninkii aan doonayno aan ku soconnay meeshii aan ka heli lahayno mawcidku uu ahaa weeyaba fartaddaa way laabteen calaa aahaarihimaa raadkoodii bay ku laabteen qasasan ay tibaacan xaal leeyihiin kuwa raacay raadkoodii ayagoon ka leexanaynin inuu dhagixi geeyay rabaan oo meel kale ayna u dhumino moogtahay raadkoodii bay dib u raaceen qasasan xaal leeyihiin aahaartoodii kuwa raacayo dib u raacayo falama intahayaa ila sakrati markay gaareen idaa rajulun nin baaba ahaaday musajan la duuduubay bihawbin maro ow qaala wuxuu yidhi nabigu waa shakuraawi yatasajaa isku duuduubay bihawbihi maradiisuu isku duuduubay nin maradiisii isku doonyeeyey
oo lugaha intuu soo geliyay madaxana soo geliyay sidaa isugu duuduubay ayayba yaa meeshii jiifa dhagaxa agtiisa ahayd fasallama muusa nabi muuse wuu salaamay assalaamu calaykum ayuu ku yidhi faqaala alkhadiru khadir wuxuu yidhi wa annaa biardika asalaam wa annaa xaggeebay biardika ardadaada asalaam salaam xaggee ka ad dhulkaan ma dhul salaam laga yaqaanaa salaamtaa islaamka lagama yaqaano dhulkaan dhul gaalo ay degan tahay buu ahaa wax kale isku salaami jireen marka taxiyadaas oo salaamtaa islaamka meesha lagamaba yaqaano marka wuu khadir waa la yaabaya wuu la cajibayaa salaamtuu la yaabay ee meesha kumuuna ogeyn faqaala nabi muuse wuxuu yidhi ana muusa anigu waxaan ahay muuse intuuna yacni wax su-aalin horteed ama inuu raaco uusa ka dalbin horteed buu rabaa uu is ogeysiiyo horta uu isbaro waay anigu muusa baan ahay faqaala khadir wuxuu yidhi muusa bani israa'iil muusihii reer bani israa'iilba oo nabiga u ahaaba de isku arlada mayn joogine maxaa ogeysiiye bal fiiri wuu ogyahay muusa bani israa'iilba qaala wuxuu yidhi nacam wuu aamusay marka khadir qaala wuxuu yidhi muuse hal atabicuka ma ku raaca inaan ku raacaan doonayaa calaa an tucallimanii inaad i barto mimaa cullimta wixii lagu baray rushdan xaalu yahay hanuun rushdan aydaa rushdin xaalu yahay wixii lagu baray inaad wax iga bartaan doonaya inaan ku raacaan rabaa qaala wuxuu yidhi khadir innaka adigu lan tastadiica ma kari kartid macii macayga sabran iguma sabri kartid oo afcaasha aan samaynayo waxaad ku sabri karta maaha nabi baa tahay shareecada daahirkeedaad ilaalinaysaa kitaab baa lagu siiyey marka waxaan daahirkiisu inuu fasaadka yahay loo malaynayo baatinkiisuna aan sidaa ahayn oo afcaasha aniga iga dhici doontaa kuma sabri kartid yaa muusa muusow innii anigu calaa cilmin baan ku suganayo min cilmi illaahi callamaniihi ilaahay uu i baray laa taclamuhu anta adigu aada ogeyn wa anta adiguna calaa cilmin baad ku sugan tahay callamakahu llahu ilaahay uu ku baray laa aclamhu aniga aana ogeyn marka ima raaci kartide inaad seekay joogto saasaa fiican qaala wuxuu yidhi nabi muuse satajidunii waad ii heli doontaa in shaa allahu saabiran inaan nin sabraya ahaad igu ogaan doontaa wax kastaba ha kaa dhaco hadduu rabee waan sabri doonaa sabr baad igu ogaan doontaa walaa acsi caasin maayo laka adiga amran amarna kugu caasin maayo waayahay waa hagaag fandalaqaa waa tageen marka inakeen buu yidhi marka waayahay fandalaqaa way tageen yamshiyaani ayagoo soconayo calaa saaxililbaxri badda xeebteeda ayagoo ku soconayo laysa lahumaa safiinatun markaa wax doon a ma haystaan markaasay badda xeebteeda qaadeen fandalaqaa nabi muuse iyo markaas khadir unbaa la soo qaaday qisada lagu soo qaaday nabi yuushacna wuu la socdaa yuushac oo khaadimkii nabi muusa wuu la socdaa laakiin lama sheegin nabi muuse u taabic u yahay laakiin wuu la jiraa badda xeebteedii bay qaadeen marka famarad bihimaa safiinatun doon socota ayaa soo martay fakallamuuhum way la hadleen an yaxmiluuhumaa inay qaado doontii bay waxay yidhahdeen na qaad lacagna ma wadanee iska kaa nasii qaada fa curifa alkhadaru khadar baa la gartay dee asagaa dhulkan lagu yaqaanaye khadir baa la gartay ayahay fa xamaluuhumaa way qaadeen bikayri nawlin lacag la'aan kira la'aan bay qaadeen ujro la'aan ayaa la qaaday wey marxaban oo de ninkaana nin fiican oo ducadiisa la aqbalo oo wanaagsan oo yani yaa lagu yaqaanay khadir oo nin iska cajiib u ahay dhulkaa laga yaqaanay markii la arkayba waxaa le soo fuula lacag la'aan baan idinku qaadaynay fa jaa'a cusfuurun baa yimid shimbirka cusfuurka la yidhahdo ayaa yimid raan yar ayaa la shimbir yar aya fa waqaca calaa xafri safiinati doonta qarkeeduu ku istaagay fa naqara naqratan aw naqratayni min albaxri doonta qarkeeda intiisaa uu istaagay ayuu biyihii afka geliyoo qud buu hal mar ka siiyey aw naqratayni laba goor buu afka qud ka siiyey waana iska duulay shimbirkaas waxbaa lagu tusinayaa naftiisa fa qaala alkhadiru khadir wuxuu yidhi yaa muusa muusow maa naqasa ma nusqaaminin cilmii cilmigayga iyo wa cilmuka cilmigaada
min cilmi illaahi ilaahay cilmigiisa ilaa ka naqrati hada alcusuur shimbirkaan inta uu ka nusqaamiyo oo kale mooyaane fi lbaxri badda shimbirkaan hadda afka badda sidaa u geliyay muxuu ka nusqaamiyey baddi waxbo cilmigayga iyo cilmigaaga adiga lagu baray cilmiga ilaahay intaasoo kale u jooga intaasoo kale hataa ma dhan kama nusqaamina facamida alkhadiru khadir wuu u qasday ilaa lawxin loox buu u qasday oo min alwaaxi safiinata ka mid ah fanazacahu wuu fujiyey markiiba doontiisoo sidaa maha way socotay baddi bay ku socotaa doonta alwaaxdeedii hoose oo dhinacii xagga biyaha ahayd looxan buu u qasdayoo intiiyo intaun buu ka jebiyey hal loox buu meesha ka saaray riwaayaadka qaarna waxay leeyihin laba loox buuba soo saaray fa qaala muusa nabi muuse was celin waayad doonta haddii hoos laga jebiyo loox laga bixiyo biyaha soo gelaya soo ma biyuhu hadday soo galaanna doontu waa degaysa hadday degtana waa la qarqumaya khalaas waa lagu dhamaanaya riwaayaadka qaar waxaa ku sugan mar alla markuu sidaa oga siibay nabi muuse go' weyn oo uu haystay buu markiiba la soo booday markaasuu meesha ku daariyey mar imtixaan badan rinku waa marka doontii markiiba beesha buu geliyey hadalkana wuu bi faqaala muusa wuxuu yidhi qowmun qowm xamaluunaa na soo qaaday bikayri nawlin lacag la-aan na soo qaaday camita waad u qasaday ilaa safiinatihim doontoodii faqaraqtaha waa dilaacis lituqriqa ahlahaa ehelkeeda inaad qarqiso ay biyaha ay ku haftoomaan mawaalintaniga maxaa kugu dhacay maxaasaa u yeelaysaa qaala wuxuu yidhi khadir alam aqul soo kuma odhan innaka lan tastadiica maciya sabraa horay maxaan kuu idhi ama afeef horo lahow baa liya ama adkaysin dambo horay soo kuguma afeefanin niyaho iguma sabri kartida joog soo kuma dhihin aaya markaa umuu nabi muuse isgartay qaala wuxuu yidhi laa tu'aakhidnii ha ii qabanin bimaa nasiitu wixii aan hilmaamay walaa turhiqnii ha igu xumbaarinoo min amri amarkaygana cusran culays ha iga dhigin ii dhaafniyo hadda waan hilmaamaye hilmaankuna dee waa ibni aadamku hilmaanku waa ka dhacaay waan hilmaamay fa kaanat iluulaa midda hore waxay ahaatay min muusa nabi muuse nisyaanan bay ka ahaatay fandalaqaa way tageen haddana way socdeen doontii waa laga degay waa la iska socday fa idaa biqulaamin canug yar wiil yar baa ku soo baxay yalcabu ciyaaraya maca alkhilmaani wiilasha la ciyaaraya fa akhada alkhadiru khadir wuu qabtay bira'si canugii yaraabuu madaxa qabtay min aclaahu dhinaca sare fakhtalaca wuu fujiyey ra'sahu madaxii buu fujiyey biyadiis saa unbuu canugii u qabtayoo madaxii buu fujiyeyba faq aye faqaala muusa nabi muuse wuxuu yidhi aqatalta nafsan zakiyatan aqatalta ma dishay nafsan naftoo zakiyatin yacni zakiye oo daahiroon dembi lahayn bikayri nafsin naf kalena aan dilin naf unbaa loo dilaay canugaa yarkoo weliba xataa dembi aan gaarin naftaas zakiyada ayaa dishay ood kow ka siisay qaala wuxuu yidhi khadir alam aqul laka markii dambe canaan buu ku daray markii hore muxuu yidhi alam aqul innaka lan tastadiica maciya sabran buu soo yidhi mar labaad markuu haddana arrintii uu ku dhacay muxuu yidhi alam aqul laka alam aqul soo kuma odhani laka adigadaas canaan weygo war adiga soo kuma dhihin lan tastadiica maciya sabran macayga ma sabri kartid soo kuma odhan fandalaqaa way tageen muxuu yidhi markaa nabi muuse markaa dambena mar dambaba haddaan wax ku weydiiya hayla saaxiibin buui ahy markan un keliya ii dhaaf waa markii labaad haddaanba mar saddexaad ku noqdo haba ila saaxiibin markaas aye fandalaqaa way tageen xataa idaa atayaa markii yani waxay u tageen ahla qaryatin waxay galeen qaryo ehelkeed bay u galeen istadcamaa markaasay waxay weydiisteen martiqaad iyo diyaafa dacaan bay weydiistay ahlahaa ehelkeed fa abow an yudayifuuhumaa war idin marti gelin maynay kor nooga baxali waxaan idin siinayna male waa la soo caydi markaasay iska dhex marayeen magaalada iska dhex marayeen martiqaad waa loo diiday soo maha magaaladii bay iska dhex marayeen nabi muuse iyo yani khadir fa wajadaa waxay heleen fiihaa qaryadii fiigeeda andaakiya la odhan jiray qaryadaasi jidaaran jidaar bay heleen yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco jidaar sidaa u iishay oo inuu dhaca doonayo jidaarkii baa iraado loo samaynaya dhicitaanka uu sii yani saa uu iishay oo dee waxba ay dhicitaankii oga dhimanayn yaa waxaa leeyihi waa jidaar doonaya inuu dhaco markaas waxay arkeen jidaar sidaa u leexsamay oo inuu dhaco doonayo qaala alkhadiru facala alkhadiru khadir wuu sameeyey biyadihi gacantiisao fa aqaamahu wuu jajiyey ninuu ilaahay iska wata wey jidaarkii xoogga badnaaya saa usi lahay gacanta unbuu sidaa ku yidhi oo waa toosiyey jidaarkii waaba toosayba caadi buu noqday fa aqaama
faqaala muusa nabi muuse wuxuu yidhi low shi'ta haddaad doonto latakhadta calayhi ajran ujro ayaad bahalkan toosintiisa iyo samayntiisa yeeli lahayd ayaguba namaysan marti qaadine maxaa derbigooda ugu toosinaysaa almina haddaad u toosinaysa maa ujro nooga qaad ayagoo martigaalkii bay noo diideen ya ujro maa nooga qaad qaala wuxuu yidhi khadir haadaa firaaqu baynii wa baynak horta meeshana isugu kaana dambaysa buuri waa midkaan ku kala tegi lahayn bas saddex goor buu u cudur daaray waa la gaaray soo maha haadaa firaaqu baynii wa baynaka buuri aniga adiga halkaana isugu kaana dambayso aaya laakiin waxaan kaaga warramayaa wixii aad ku sabri weyday cilmigoodii baan kuu sheegaya waa kii ilahay qur-aanka nooga qisooday xadiidka hadda waa la soo gaabiyey laguma sheegin ya doonta wuxuu oga warramay looxa uu ka bixinayey wuxuu oga warramay doontan waa qolo masaakiinaya agoon baa iska lahayd horteedana nin melig boqor ahoo yacni jaa'ir ahoo doomaha doonta fiican oo dhan ba iska qaadanayo ayaa ka horreeyey doonta ku socotay waxaan doonayay inaan ceebeeyo doonta hadday ceeb yeelatana waxba ku fali maayo midaan waa mid xuna iska siidaa buu leey horta saasaan doonta looxa oga bixiyey buu leey inaan ceebeeyaan doonaya si ehel qoladan masaakiinta ay doonta ugu fakato wiilkii aan yacni aan madaxa fujiyey oo aan dilayna waxaaba yani madaxiisa waxaa riwaayaadka qaar ku soo arortay intuu madaxa markuu yani hadalkii ku badiyey intuu madaxa saa u kala fujiyey laftaas yacni meeshaa dhamxanaga ay uga dhegan tahay buu saa intuu u kala fujiyey yaa halkaa waxaa kaga qoran kaafirun laa yu'minu abada waa gaal weligiina ma rumaynayo iimaan lagama helay marka mid saasuu ahaaye balaayaa ka soo socotay hadduu iska yar yahay ma ogey gaalnimo iyo balaayaa ka soo socota canugaana labadiisa waalid inuu fidno ku noqdo ayaan diinayo yacni waxaana doonayaa oo ilaahay uu doonay inuu mid ka khayr badan ilaahay ugu bedelo canugii asaga ahaa markii la dilay gabar bay yacni dhaleen baa le gabar baa u dhalatay gabadha ayada ana yacni faraceeda 9 nabi baa ka farcataa le aya mid ka khayr badan soo maaha in loogu bedelay aya kan saddexaad jidaarkan hadda aan toosiyood igu dagaalaysana yacni ilmo agoon ah ayaa iska lahaa jidaarka hoostiisana kanzi baa ugu jiray lacag baa ugu jirtay wa kaana abuuhumaa saalixan salaaxi aabbahood baa ilmaha lagu xifdinaya kanzigaa meel baa yani lacag baa kanzi baa ugu jiray hadduu jidaarkaa dumana waa la arki lahaayo waa laga qaadan lahaa markaasuu nabi khadir wuu toosiyey markaas فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما فعلته marka ilaahay naxariiso ugu naxariisanay maadaama aabbahood uu nin saalix ahaa ninku hadduu wanaagsan yahay baa leeyahay salaaxa aabbuhu ilaahay wuxuu ku anfacaya awlaadu ku anfacaya ilmahaasa ilaahay ku ilaalinaya ku dhowraya weliba yacni mufasiriinta qaar baa waxay soo qaadeen aabbaha la sheegayay inuu ahaa jaddu saabic awowga 7 buu ahaa bale awowgii 7 salaaxiisii yaa waladkaaga 7 canugaaga canugu sii dhal canuga 7 baa lagu xifdinaya ilaa intaasaa lagu xifdinaya aya meeshaasay nabi muuse iyo ku kala tageen aya nabi khadir ku kala tageen faqaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qisadoodii markuu nooga sheekeeyey nabi muuse iyo khadir yarxamu allahu muusa nabi muuse allaha u naxariisto lawadidnaa waxaan jeclaan lahayn oon iska jeclayn low sabra inuu sabro muxuu isaga sabri waaye xataa yuqasa calaynaa hana looga qisoodo min amrihima amarkooda hana looga qisooda haddii uu sabri lahaa shib iska ahaan lahaa mar kastaba wax kasii cajabla unbuu haddana samayn lahaa haddana wax kaloo yaabla unbuu samayn lahaa khadir marka wax yani wax maan ka helayn faa'iidaan kasii helayn laakiin nabi muuse sabri waayo halkaasay arrintooda ku dhabo